kusoo dhawaada daawadayaal taxaniin tubanleyda ah oo maanta kusoo qaadan doono 10 ciyaaryahan ee adduunka ugu koobo ka badan leh. Ciyaaryahan kasta oo ciyaaro kubadda cagta riidiisu waxay tahay inuu ku guuleysto koobo badan, kuwaas ay ka mid yihiin koobka adduunka iyo waliba koobka Champions League. Waxa lambarka 10aad ku jira ciyaaryahankii hore ahna tababaraha kooxda Barcelona, Xavi Hernandez, isagoo ku guuleystay 33 koob. Xavi wuxuu ka mid ahaa ciyaaryahanadii ugu wanaagsanaa ee soo maray kubadda cagta. Waxa lambarka 9aad ku jira Victor Bayo, goolhaye cajiibka ah reer Portugal, isagoo soo maray kooxaha ay ka mid yihiin FC Porto iyo waliba Barcelona, wuxuuna ku guuleystay 34 koob. Waxa lambarka 8aad ku jira ciyaaryahanka reer Portugal ee Cristiano Ronaldo, isagoo ka soo ciyaaray kooxaha ay ka mid yihiin Juventus iyo waliba kooxda hadda uu joogo ee Manchester United, waxa ku guuleystay 34 koob. Cristiano Ronaldo iyo Victor Bayo labaduba waxay haystaan isku lambar, iyagoo labaduba ay wada haystaan 34 koob. iyadoo Cristiano Ronaldo ay u saamaxday inuu ku gudo jiro xilli ciyaareedkiisii. Waxa lambarka 7aad ku jira Gerard Piqué, ciyaaryahanka reer Spain, isagoo soo ciyaaray xulka qaranka Spain iyo waliba kooxda Barcelona, waxa ku guuleystay 35 koob. Koobka uu qaaday waxa kamid ah uguna muhiimsanaa koobka adduunka oo ku guuleystay xulkiisa qaranka Spain. Waxa lambarka 6aad ku jira Kelly Dalglish, ciyaaryahankii hore ee Liverpool iyo waliba kooxda Celtic, ay isaguna ku guuleystay 35 koob. Ciyaaryahanka Gerard Piqué iyo waliba Kelly Dalglish labaduba waxay ku guuleysteen isku 35 koob, isku kaalinna way ku jiraan. Waxa lambarka 5aad ku jira Ryan Giggs, ciyaaryahankii hore ee Manchester United, ayaa isaguna ku guuleystay 36 koob. Koobka uu qaaday waxa kamid ah inuu 13 jeer uu ku guuleystay Premier League. waxa lambarka 4aad ku jira Andrés Iniesta, kubad sameeyihii cajiibka ah ee xulka qaranka Spain, isagoo suurto geliyay xulkiisa qaranka Spain inuu kula guuleysto koobkii adduunka, isagoo ku guuleystay 37 koob. Waxa lambarka 3aad ku jira Maxwell, ciyaaryahankii hore ee kooxda Barcelona iyo waliba PSG, ayaa isaguna ku guuleystay 37 koob. Maxwell iyo Andrés Iniesta labaduba waxay haystaan isku 37 koob. Waxa lambarka 2aad haysta Lionel Messi, mucjisadii kubadda cagta, ciyaaryahanka reer Argentina iyo waliba u soo ciyaaray kooxaha ay ka mid yihiin Barcelona iyo waliba kooxda hadda uu joogo ee PSG, ayaa isaguna ku guuleystay 41 koob. Lionel Messi koobka uu soo qaaday waxa kaliya oo ka maqan koobka adduunka oo aanu wali ku guuleysan. waagaag daawade waxaan hadda soo gaarnay kaalinta koobaad oo aan filayo dhamaantiin inaad wada sugayseen. Waxa kaalinta koobaad ku jira Dani Alves, ciyaaryahanka reer Brazil, u soo ciyaaray kooxo badan oo ay ka mid yihiin Barcelona oo dhawaan ka tagay PSG iyo waliba Juventus, isagoo ku guuleystay 43 koob. Koobka tirada badan ee uu ku guuleystay Dani Alves waxa ka maqan oo kaliya koobka adduunka oo aanu wali ku guuleysan. Waagaag daawade waxaan inta ku dhamaaday xogtii aan idinka soo gudbinay 10 ciyaaryahan ee adduunka ugu koobo ka badnaa. Waagaag daawade ciyaaryahanada wadankaaga ka ciyaaraya isleedahay ugu koobo badan yihiin.